ganacsatada kala duwan ee meheradaha waaweyn ku haysata suuq weynaha magaalada Berbera ayaa maanta munaasabad ballaaran u qabatay urur ay ku midoobeen ganacsatadaasi. munaasabad ballaaran oo si heersara loo soo agaasimay ujeedkeeduna ahaa daafurka ururkan ayaa saaka lagu qabtay Hotel Mansour ee magaalada Berbera. ugu horeyntiina waxaa munaasabadaasi daafuray mas'uuliyiinta cusub ee labada sano ee soo socota loo doortay inay hogaamiyaan ururka ganacsatada dhexe ee magaalada Berbera, kuwaas oo ugu horeynba ka warbixiyay baahiyaha kalifa in waqtigan la aasaaso urur ay ku midoobaan ganacsatada dhexe ee magaalada Berbera. ujeedada waxa weeye inaanu danahayaga ganacsi si aan kor ugu qaadno waxaan kor u sheegaynaa inay wax macnaha siyaasadda ama cilmiyeeda ama ay وصلتني وأي تهاي دل كيدا نعسي زيان قروبا بروتين جودي دواء ولا حياة طبعا حملات وحيوك البحرات بدومية حجين حقين ساسي كلام أنت كلامك كنت بين نبرسا إن شاء الله وكل حاجة صار كي نوع عصوبنا يا واسطة مثلا وحيدة نوكلا لكن خبرني أنا جنا أنت أسوق شكوى gudoomiyaha gobolka Saaxil Fahmi Cabdi Bidaar iyo maayirka degmada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Ciidin iyo sidoo kale maareeyaha maakaydka shidaalka ee magaalada Berbera oo iyagu munaasabadaasi ka hadlay ayaa soo dhaweeyay ururkan ay ku bahoobeen ganacsatada dhexe ee magaalada Berbera, iyaguna hambalyeeyo bogaadin u diray mas'uuliyiinta cusub ee loo doortay inay hogaamiyaan ururkani labada sano ee soo socota. waxaana hadaladii mas'uuliyiinta ka mid ahaa waxa weeyaan waan soo dhaweynaynaa waan ku garab taaganahay waan kula shaqaynaynaa soo dhawaadaan leenahay kuwa kale ee dhiman ee hoose kuwa sara midooban moranay quraas weystaa kuwa weyn laakiin kuwa hoosina si dhaqaalahoodu kor ugu soo kaco iyagana waxaan leeyahay ku boorinayaa inay urur samaystaan sidan oo kale maanta waxay noo tahay anaga degmaahan farxad weyn bay noo tahay naftiisii wax ka bedelo degmadiisii wax ka bedelo bulshadiisii wax ka bedelo dadku marka dhaqaale helaan bay horumar gaaraan marka anaga macna loo sameynayso wadooyin aan sameynaa haddii dadkii u dandiitay yihiin dadkii waxaan doonaynaa inay dabaqyada ugu qabadaan magaalada ka dhistaan. runtii ganacsiga ilaahay idin barkeeyo waxaa ku bishaaraysataan inuu yahay shaqo nebi maxamed jeclaa calayhi salaatu wasalaam. waxaa ku bishaaraysataan shaqadii dacwadda bilowday wey diinta nebi maxamed ganacsi baa laga kaalmeeyey. khadiija ayaa diintu inay socoto sababtay. habluhu way ganacsan karaan, ganacsiga islaamku wuu xalaaleeyay dumarka siday khadiijaba u ganacsanaysay, laakiin ganacsi xishood iyo xishmad iyo dhaqan iyo akhlaaq iyo diin la weyn. Khalid Xasan Kharash, Bulsha TV, magaalada Berbera.